kulan wanaagsan daawadayaal waa markale iyo barnaamijkeennii xog warniyo maanta waa maalmo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay 25 bisha 8 sanadka 2020 qodobada wararka warkeena labaad aan inagu haynana waxaa kamid ah madaxtooyada Villa Soomaaliya wajahaysa jahwareer dhanka maamulka madaxweynaha Soomaaliland oo kulan la qaatay guddiga doorashooyinka Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir oo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug madasha xisbiyada qaran iyo beesha caalamka oo kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho haddaba kulankaasi maxaa looga hadlay dowladda Turkiga oo gaadi dagaal ku wadajisay dowladda Soomaaliya ciidamada danaba howlgallo qorshaysan ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose koox hubeysan oo dad ku dilay koonfurta dalka Burundi iyo madaxweynihii hore ee dalka Britaniya oo xabsiga laga sii daayay qodobadaas iyo qodobo kale daawadayaal barnaamijkeena xog war inta aan ku jirno aad uga bogan doontaan markale ku soo dhawaada fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran subscribe saar channelka kambalkan riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe mahadsanid markale kula wanaagsan saaxiibayaal aan ku bilaabay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay wajahaysaa xasilooni dhanka maamulka ah ayadoo madaxweyne Farmaajo 3 sano iyo bar uu joogay madaxtooyada ay yeelatay 5 agaasime madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maalmaha soo socda uu magacaabo agaasimihii lixaad ee yeelanaysa madaxtooyada Soomaaliya waxa sidoo kale jira agaasime ku-xigeenno badan oo soo maray madaxtooyada Soomaaliya kuwaas oo qaarkood ay isku dhawaayeen siyaasad ahaan madaxweyne Farmaajo 5 agaasime ee madaxtooyada Soomaaliya soo maray marka laga soo bilaabo 8 February sanadkii 2017 ayaa waxa ay kala yihiin Dr. علي سعيد فقي أبوكر عبد عثمان أبوكر بالله فهد ياسين حاج الطاهر دكتور عيسى آمنة سعيد علي iyo Dr. نور الدريه فرسدي madaxweynaha ayaa xeerarka ka wada qaaday agaasimayaasha madaxtooyada marka laga reebo Dr. Nuur Diriye Fursidi oo isaga tagay shaqada kadib markii ay isqabteen madaxweynaha Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ila xogaal ah qaar ka mid ah howlwadeennada madaxtooyada ayaa waxa ay sheegeen qaarkood in 3 sano la soo dhaafay ay wajaheen dhibaato maamul oo aad u adag maadaama isbedelka joogtada ah uu saameeyay agaasimayaasha qaybaha kala duwan ee madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada waxa uu kulan kula qaatay guddiga komishinka doorashooyinka Soomaaliland guddiga komishinka doorashooyinka ayaa waxa uu madaxweynaha uga warbixiyay hawlaha qabsoominta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo ay hore u soo saareen jadwalka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyin iyagoo xusay inay u bandhigeen xisbiyada Soomaaliland waxaana ay sheegeen inay ka go'an tahay sidii ay doorashooyinku ugu qabsoomi lahaayeen waqtigii loogu talagalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa waxa uu ku bogaadiyay dadaalka ay ku jiraan diyaarinta qabsoominta doorashooyinka wuxuuna ku dhiirigeliyay inay xaqiijiyaan sida doorashooyinkaasi ugu qabsoomi lahaayeen isaguna ku wadkii inay dardargeliyaan diyaarinta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo hawsha qabsoominta doorashooyinka ugu dambeyn waxaa kulanka madaxweynaha iyo guddiga doorashooyinka isla meel dhigeen in si wadajir ah loo wajaho qabsoominta doorashooyinka Soomaaliland wafdi uu hogaaminayo siyaasiga mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ayaa waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug safarka ayaa waxa ku weheliyay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada maamulka Galmudug maalmihii la soo dhaafay ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxa ka dhacay shir looga hadlayay marxaladda galguurka siyaasadeed ee dalku galay iyo go'aan ka gaarista hanaanka doorashooyinka dalka madasha xisbiyada qaran iyo beesha caalamka ee kulan xasaasi ah waxay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa soo gabagaboobay shir u dhaxeeyay beesha caalamka iyo madasha xisbiyada qaran kaas oo looga hadlayay shirkii Dhuusamareeb 3 kulankan ayaa waxa uu ka dhacay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran madasha ayaa waxa ay beesha caalamka u sheegeen si heshiiska Dhuusamareeb u noqdo mid dhameystiran inay ka qayb galaan dhammaan saamilada siyaasadda oo ay ku jiraan maamulada shirka ka maqnaa xisbiyada iyo ururada bulshada sidoo kale waxa hoos laga wada xariiqay in heshiiska Dhuusamareeb 3 uu u baahan yahay in lagu cadeeyo waqtiga doorashada la qabanayo iyo in xal laga gaaro khilaafka baarlamaanka labadiisa kale si ay u ansixiyaan heshiiska Dhuusamareeb 3 dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya waxa ay soo gaarsiisay 12 baabuur kuwaasi oo qayb ka ah heshiisyo military iyo iskaashi dhaqaale ah oo laba geesood ah wasaaradda difaaca Turkiga ayaa waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in baabuurta loogu talagalay in lagu isticmaalo dhul aad u qalafsan looguna talagalay kuutada saddexaad ee ciidamada korkor ee dowladda Soomaaliya gaadiidkan ayaa waxa la wareegay taliyaha ciidanka difaaca Soomaaliya
dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya waxay ka caawisaa dhismaha iyo tayeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. ciidamo ka tirsan Kamaandoosta Soomaaliya ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyeen deegaano ka agdhow degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalkan ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. taliyaha kootada 16aad ee Kamaandooska xoogga dalka ee Danab Kanshaale Ismaaciil Cabdimaalig oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in howlgalka sidoo kale gacanta lagu soo qabtay hub iyo saanad ciidan, isagoo sheegay inay burburiyeen isagoo Al-Shabaab ku lahaayeen deegaano hoostaga degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. weli waxaa naga socotaan warbaahinta xog waran wararka kala heynana waxaa kamid ah ugu yaraan 15 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen weerar ay rag hubeysan ka geysteen koonfurta dalka Burundi. weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay degmada Buka ee dalka Burundi, waxaana la sheegay inuu bilowday xaddi la soo dhaafay wuxuuna socday ilaa shalay. dadka deegaanka ayaa isaga cararay xaafadahooda isla markaana duurka galay si ay uga badbaadaan waxyeelada kooxaha hubeysan. kooxaha mucaaradka ee fadhigoodu yahay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo oo Burundi daris la ah ayaa qoraal ay baraha bulshada soo dhigeen waxay ku sheegeen inay iyagu geysteen weerarkaasi. sarkaal sare oo dowladda ka tirsan ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi lala xiriirinayo dib u dejinta qaxoontigii u qaxay Rwanda kadib markii ay ka qaxeen rabshadihii ka dhacay Burundi sanadkii 2017. ugu dambeyn haddii aan eegno dalka Mauritania, madaxweynihii hore ee dalka Mauritania Maxamed Ould Abdulcasiis ayaa xabsiga laga sii daayay kadib markii muddo isbuuciyo ah uu xirnaa booliiska dalkaasi si ay su'aalo uga weydiiyaan arrimo la xiriira tuhun musuqmaasuqa. qareenkiisa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Abdulcasiis laga mamnuucay inuu ka baxo magaalada caasimadda ee dalkaasi. Abdulcasiis ayaa 17 bishan Agoosto waxaa lagu yeeray xarunta dambibaarista ayadoona maanta dib loo fasaxay kuna amartay inuu la shaqeeyo dambibaarista welina uu baaritaan ku socdo. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeennii xog waran iyo maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran, subscribe saar channelka gambaleelka riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe. mahadsanid.